daawadayaal ku soo dhawaada Saxafi Films Channel oo aad uga barateen arrimaha aflaanta sida Tamil, Telugu, Malayalam, Hollywood iyo Bollywood. barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa aktarka caanka ah Hollywoodka Will Smith. Will Smith waxa uu dhashay 25kii bishii September sanadkii 1968 waa jilaa u dhashay dalka Mareykanka ahna soo saare aflaan raabeeya iyo sidoo kalena waxa uu yahay xidigan madowga ah qoraa dhanka heesaha ah. waxa uu ku raaxaysanayaa guulihiisa dhanka filimada iyo TV-yada sidoo kalena dhanka heesaha bishii April sanadkii 2007 Newsweek ayaa u magacawday jilaaga ugu awoodda badan Hollywoodka sidoo kalena Will Smith waxa uu helay 4 jeer bilada Golden Globe Awards sidoo kale 2 jeer ayuu hantay Academy Awards ugu dambeyntii sidoo kale waxa uu ku guuleystay 4 jeer bilada Grammy. dhamaadkii 80maadkii Smith ayaa keenay mid kamid ah heesihiisa kuwa ugu aansan waxa uu xiligaas raabeey uu noqday Fresh Prince. bartamihii sanadkii 1990 ay saramareen taageerayaasha uu leeyahay jilaagan raabkana ku caanbaxay. waxa uu xidigan xiligaas ka soo muuqday musalsalka The Fresh Prince of the Bel-Air. showgan ayaana socday ilaa iyo 6 season waxaana baahiyay TV-ga caanka ah ee dalka Mareykanka NBC tan iyo xiligaasna filimkaas waxaa laga sii daayaa oo laga daawadaa TV-ga NBC. aabaha dhalay Jaden Smith ayaa ka gudbay jiliinka musalsalka gaarka u ah TV-yada isaga oo u wareegay jilista aflaanta waana jilaaga kaliya ee helay ama aflaantiisa ay soo xareysay in ka badan ilaa iyo $100 milyan oo dollarka Mareykanka. 11 kamid ah filimadiisa ayaana soo xareeyay $150 milyan oo dollarka Mareykanka. sidoo kalena Will Smith ayaa jilaaga koowaad ka noqday in badan oo xiriir ah box office-ka. Will Smith ayaa loo aqoonsaday in uu kamid yahay jilaayada ugu hantida badan dunida sida lagu daabacay Forbes sanadkii 2014 ilaa iyo 17 22 filim uu waday ayaa noqday kuwa soo xareeyay lacag kor u dhaafaya $100 milyan oo dollarka Mareykanka. filimkiisa 2014 waxa uu soo xareeyay qiyaas ahaan lacago kor u dhaafaya 6.6 bilyan oo dollar. waxa uuna nuteystay in uu helo Oscar-ka uu qaato jilaaga ugu wanaagsan. noloshiisa gaarka ah iyo dhalashada jilaaga caanka ah ee Will Smith waxa uu ku dhashay galbeedka Philadelphia waxa uuna dugsiga sare kaga baxay Philadelphia. waxa uu ku soo barbaaray Smith isla magaalada uu ku dhashay ee Philadelphia. waxa la dhashay 3 caruur ah, Pamela iyo 2 mataano ah, Harry iyo Ellen. waxa uuna xidigan ka soo muuqday barnaamijka Lady of Lourdes. waalidiinta Will Smith way kala tageen iyaga oo aan isfurin ayna kala maqnaayeen ilaa iyo sanadkii 2000. guulihiisa iyo shaqadiisa jilaanimo Will Smith waxa uu ku bilowday markii ugu horeysay heesaanimo isaga oo DJ Jazzy Jeff iyo The Fresh kala soo muuqday heesaha nooca loo yaqaano hip hop. waxa uuna markii dambe isku bedelay soo saare waxa uuna biladiisa ugu horeysay kula guuleystay labadiisa saaxiib Will Smith sanadkii 1988 biladii ugu horeysay ee Will Smith Emmy Awards 1993 intii u dhaxaysay sanadkii 1988 ilaa iyo 1989 waxa uu Smith helay qarash midkii ugu sareeyay ee uu helo noloshiisa. waxa uu hantiyay in ku dhow 2.8 milyan oo dollar. waxaana hantidiisa ay sare u kacday bilowgii 90maadkii kadib markii uu la siixday TV-ga soo saaray musalsalada Mareykanka NBC. waxa uuna 6 xili uu jilay
musalsal ka hor inta uusan si rasmi ah ugu soo muuqan Hollywoodka. guulo badan ayuuna ka soo hooyay Smith intii uu ku dhex jiray jilinkiisa. waxa uuna noqday ninka ugu sareeya filim jilaa ka noqda dunida. waxa uuna si joogto ah ugu soo dhex muuqanayay box office-ka Hollywoodka. nolosha gaarka ah ee Will Smith iyo waxyaabaha gaarka ah ee uu xayeysiiyo. Will Smith waxa uu guursaday Asharee sanadkii 1992 waxa ayna u dhashay haskan kaliya hal canug 11 November 1992 ayna u dhashay canugiisii ugu horeeyay nasiib xumo. waxa ayna kala tageen Zambino iyo Smith sanadkii 1995. wiilka Will Smith waxa uu ka soo muuqday heestii aabihiisa sameeyay 1998. sidoo kale waxa uu jilay wiilkan laba xalqadood oo kamid ah sitcom All of Us. sidoo kale waxa uu ka soo muuqday showga Winfrey. Will Smith iyo caruurtiisa. Will Smith waxa sidoo kale uu guursaday jilaayada Jada Koren sanadkii 1997 waxa ayna u dhashay Miss Koren. Will Smith laba caruur oo uu ka mid yahay canuga maray wadada Will Smith ee Jaden Smith jilaaga filimka Great Kid. waxaana filimkaas wiilka Will Smith la jilay jilaaga caanka ah ee Jackie Chan. Jaden Smith waxa uu dhashay sanadkii 1998 halka gabadha ka yar ay dhalatay sanadkii 2000. gabadhaasna waxa lagu magacaabaa Willow Smith. dhammaan filmadii uu keenay Will Smith iyo sanadihii ay soo baxeen. filimkiisii ugu horeeyay waxa uu soo baxay sanadkii 1992 waxaana lagu magacaabaa Where the Day Takes You. filimkiisii labaad waxa uu soo baxay sanadkii 1993 waxaana lagu magacaabaa Made in America. filimkiisii saddexaad waxa uu soo baxay sanadkii 1993 waxaana lagu magacaabaa Six Degrees of Separation. filimkiisii afraad waxa uu soo baxay sanadkii 1995 waxaana lagu magacaabaa Bad Boys. filimkiisii lixaad waxa uu soo baxay sanadkii 1996 waxaana lagu magacaabaa Independence Day. filimkiisii toddobaad waxa uu soo baxay sanadkii 1997 waxaana lagu magacaabaa Men in Black. filimkiisii sideedaad waxa uu soo baxay sanadkii 1998 waxaana lagu magacaabaa Enemy of the State. filimkiisii sagaalaad waxa uu soo baxay sanadkii 1999 waxaana lagu magacaabaa Wild West. filimkiisii tobanaad waxa uu soo baxay sanadkii 2000 waxaana lagu magacaabaa The Legend of Bagger Vance. filimkiisii 11aad waxa uu soo baxay sanadkii 2001 waxaana lagu magacaabaa Ali. filimkiisii 12aad waxa uu soo baxay sanadkii 2002 waxaana lagu magacaabaa Men in Black 2. filimkiisii 13aad waxa uu soo baxay sanadkii 2003 waxaana lagu magacaabaa Bad Boys 2. filimkiisii 14aad waxa uu soo baxay sanadkii 2004 waxaana lagu magacaabaa Jersey Girl. filimkiisii 15aad waxa uu soo baxay sanadkii 2004 waxaana lagu magacaabaa I, Robot. filimkiisii 16aad waxa uu soo baxay sanadkii 2005 waxaana lagu magacaabaa Hitch. filimkiisii 17aad waxa uu soo baxay sanadkii 2006 waxaana lagu magacaabaa Pursuit of the Happiness. filimkiisii 17aad waxa uu soo baxay sanadkii 2007 waxaana lagu magacaabaa I Am Legend. filimkiisii 18aad waxa uu soo baxay sanadkii 2008 waxaana lagu magacaabaa Hancock. filimkiisii 19aad waxa uu soo baxay sanadkii 2008 waxaana lagu magacaabaa Seven Bounds. filimkiisii 19aad waxa uu soo baxay sanadkii 2012 waxaana lagu magacaabaa Men in Black 3. filimkiisii 20aad waxa uu soo baxay sanadkii 2013 waxaana lagu magacaabaa After Earth. filimkiisii 21aad waxa uu soo baxay sanadkii 2014 waxaana lagu magacaabaa Winter's Tale. filimkiisii 22aad waxa uu soo baxay sanadkii 2015 waxaana lagu magacaabaa Fox. filimkiisii 23aad waxa uu soo baxay sanadkii 2016 waxaana lagu magacaabaa Suicide Squad.
daawadayaal intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni gaarka ah ee aad kala socoteen Saxafi Films waxaana aynu kaga hadlaynay taariikhda jilaaga caanka ah ee Will Smith. Ha moogaanina in aad subscribe tiraahdaan Saxafi Films.